cadaadisyada nolosha iyo xaaladaha kacsan ee nafsadda waxay saameynayaan hawlaheena iyo shaqooyinkeena maalinlaha ah. waxayna daciifiyaan awooddeena nafsiyeed iyo jireed. inkasta oo haddana cadaadisyadan ay dhan ka wataan inay yihiin kuwa iijaabi ah, waayo qofka ayaa waxa uu ku ogaanayaa awooddiisa adkaysi iyo sidii uu dhan isaga riixi lahaa loolamada ka hor imaan kara, iyo inuu diyaar u noqdo sidii uu ku waajihi lahaa cadaadisyadan si ay ugu suuro gasho qofka gaaridda hadafkiisa. haddaba waxaan diiradda saaraynaa noocyada cadaadis ee nolosha, raadadka ay reebaan, intaasina waxaa sii dheer qaabka loo maareyn karo cadaadisyadaasi. bal marka hore aan milicsano noocyada cadaadisyada ee nolosha. waxaa ka mid ah cadaadisyada maalinlaha ah, waana cadaadisyada uu la kulmo qofka maalin walba, saameyntooduna waa ay kala duwan yihiin, sida mushkiladda arrimaha qoyska, cadaadisyada dhaqaalaha, waxbarashada, bulshada, caatifadda iyo cadaadisyada shaqada. sidoo kale waxaa jira cadaadis aan caadi ahayn. kani wuxuu u yimaadaa si lama filaan ah, natiijadiisana waxay noqotaa masiibo dabiici ah, ama waxaa keena inuu dhaco shil daran oo xanuun badan. sidoo kale waxaa ka mid ah cadaadisyada nolosha cadaadis muddo gaaban. waxaa keena inuu qofka soo waajahdo mushkilad oo muddo gaabana, kadibna waa uu ka gudbayaa muddo kadib, sida isaga oo hanti beelay, ama uu la kulmay khasaaro, ama uu ka dhintay qof aad ugu dhowaa. waxaa kaloo ka mid ah cadaadis muddo dheer soconaya. waa cadaadis uu qofka uu la kulmayo oo uu ku reebayo saameyn ama raad soconaya muddo dheer, sida cudur daran oo qofka ku dhacay, ama uu waayay ama uu khasaaray wax markaasi aan laga soo kaban karin. haddaba waxaa jirta saameyno kala duwan uu reebo cadaadisyada nolosha. qofka waxa uu u saameeyaa cadaadiska siyaabo kala duwan. saameyntan ayaa waxay noqon kartaa mid adag, waxayna socon kartaa muddo dheer. waxa uu keeni karaa saameyn fudud oo soconaysa muddo gaaban. saameynta uu keeno cadaadiska ayaa waxaa ka mid ah saameyn nafeed. waa isbedello soo waajaha qofka, waxayna hor istaagaysaa awoodaha qofka oo dareenkiisa iyo diiraddiisii luminaya. waxaana imaanaya isku dhexyaacsanaan oo dhanka xusuustiisa ah. waxaa kordhaya xawaaraha xanaaqiisa, waxa uuna ka xanaaqayaa waxyaabo fudud. waxa uu qofka u keenayaa inuu dareemo murugo iyo kadeed. waxaana muhiim ah in la ogaado in haddii ay saameyntani ay sii socoto waqti dheer, waxa uu marka dambe keenayaa mashaakilo waaweyn oo nafsadda ku keenayo. waxaa xumaanaya xiriirka uu kala dhexeeyo qoyskiisa iyo bulshada, waxaana hoos u dhacaya inuu ka guulgaaro shaqooyinkiisa iyo helidda khibrado. saameynada uu reebo cadaadiska nolosha ayaa waxaa ka mid ah saameyn jireed. saameyntan ayaa waxay ku dhacaysaa jirka, wuxuuna ku dhacayaa shaqooyinka xubnaha jirka ay qabtaan. waxaa kordhaya metabolismka oo ah shaqada dheefshiidka ee jirka gaarsiiya wixii dheef ah ama tamar ah, si ay ugu suuro gasho waajihidda cadaadisyada. waxaa kordhaya shaqada wadnaha si ugu suuro gasho inuu dhiigga bamgareeyo si uu u gaarsiiyo dhammaan qaybaha kala duwan ee jirka. waxaa kordhaya shaqada habdhiska neefsashada. intaasi waxaa sii dheer, waxaa siyaadaya shaqada xubnaha jirka. haddii ay saameyntani sii socoto, inay jirka ku keenayso xanuuno. qofka waxa uu la dhibtoonayaa inuu dhiiggiisa uu karo, sonkorta jirkiisana ay kororto, iyo xanuuno kale. saameyn dhaqan. sidoo kale waxa uu keenaa cadaadiska nolosha saameyn dhaqan. qofka dhaqankiisa ayaa waxaa ku dhacaya isbeddel, iyada oo ay ugu wacan tahay natiijada waxyaabihii horey u dhacay oo ahaa wixii ku soo dhacay nafsadda iyo jirka. qofka waxa uu noqonayaa in himiladiisa, hankiisa iyo xamaasadiisa ay yaraato,
hoos u dhac ku yimaado inuu dhammaystiro oo ka guulgaaro shaqooyinkiisa, hoos u dhac ku yimaado rabitaankiisa cunto cunid, waxaana qalqalgelaya saacadaha hurdadiisa. Haddaba sidee ayaa lagu maareyn karaa cadaadisyada nolosha? 1. Inaadan qarsan waxyaabaha ku dhibaya oo aad isku daydo inaad hesho qof kuu dhow aad kala hadasho arrintaasi kuna xaliya ama uu kaa yareeyo. 2. Inaad isku daydo sugidda inaad diiradda saarto sidii aad ku xallin lahayd mushkiladda jirta ee maaha mushkiladda qudheeda. Midda xigtana ay noqoto inaad ka shaqayso qaabkii aad ku gaari lahayd xal munaasib ah oo dhab ah. 3. Waa inaad ka fogaato isku koobidda cadaadiska, shaqooyinka kuu yaalana oo isbiirsaday u wakiilatid dad kale oo leh kalsooni nafeed. 5. Ha shaqayn adiga oo aadan digsan qorshihii aad ku shaqayn lahayd iyo hadafka aad tiigsanayso. 6. Inaad isku daydo inaad waajahdo walwalka, cabsida iyo qalqalka. taasna waxaad samayn kartaa marka kalsoonidaada nafta ziyaada tahay. heshidna saacado raaxo iyo nasasho.